أنا إذن ياري أو إذا بالوالدين تهاليجو يار ماشان تجي ده صورة قاركود إسلام كواركتين وليش وصارك عيد ما أنت لبعضه عيد ما أنت كود هالك أنا كتجني ما أنت لبعضه عيد ولا سو عيدني أنتو ده مش جوكتاه نول بين أو قوس كيسين ولا صهاد العكار أي كويب سدانا وصور رابي ما أنت ما بريم الدود هنا أي صو قلان أي صهاد لان والدان هاي أنا أبان هاي عرور لا أوان هاي وقرن كرا وحا إيه معناها أي كفر دهن حنونك إليهن عرورته يوم حوا يقولوا مركان كور هاي والدك وحال إذا الميس وحوج عليه هاي متك مقن أنا كور هاي أما متك حنونسان مركز أو صريت الجيفو أي وج عليها اللي يراه مركا آدي أيان أدري ما وحا أصاب مرتين إذا كدلك حرين هاي وإن الدل كان شباب كساران dadka Soomaalidana ay sharaftooda karaamadooda soo celiyaan niman aad u maraysid inay aad iyo aad uga go'an tahay oo ku dhaaranayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wajigooda shucuurta ka muuqata aad yaabaysid markay kula hadlayaan marka ilaahay idankiis guul kasta guusha ilaaha keena guul kastana waxay la qiimo loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dada u rafaada dada u xanuunsada kuwa axibba ah oo wax jeclaay ayaa waxay jeclaayeen waaya kuwa la jeclaaya lagu waaya marka guushu waxay leedahay qiimi loo bixiyay leedahay ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda la soo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guushu ilaahay idankiisa aanu bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aan u baxnaa diyaaliira marka walaalahay waa maasantihiin waalidiinta kale oo dhanna la igu salaamo inta aad qabtaan oo kale qabaan dareenka aad qabtiin iyo waxa aad cabiraysan inay wada cabiraan waa ogyahay boqolkiiba boqol lagu salaamay ilmaha waa ilmahaygi ilaahay idinkiis waa ka shaqaynay waana ka soo shaqaynayna inta dhimanna waana keenayna diyaarada waxaan maanta aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha maalintaan arkay la yiri xasan sheekh maxamed wuxuu u duulay Eritrea waa iiga dhamaatay abdi baa la yiraahdaa wiilkaygu inuu sariirta jiifay la ahayd geeriya nolol ma haynin mar labaad baan ku mahad celinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan ka waan faraxsanahay wiilkaygu saako ila hadla wiilkaygu maanta ila hadlay ma qarinayo malaa'ig baa garbayga saaran kelmadu yiri madaxweyne waan ku sheegay hadalkii iigu horeeyaan oo yiri wuxuu yiri hooyo maanta waan faraxsanahay anoo kula jooga ila mita waxa noo yimid madaxweyne bila aadan ah wallahu sa kelmad kale idin salaada casarka way dhowrantay eedyada keenga ma hanagaana boqolkiiba boqol eedna ma hasanta asarku horta marii la ka saare haqiiqo may walay awlaadas sagaalun ikoowdi madi dagaaladii burburan dagaalkii ahliga dhii iskool la waay lanka iskool aradunka aasaasay unugeedun adi wal habarti una dhalnay leeyma adi wal habarti jaamacada adi ha ku biidi hatan intii weydiido ha aragda unugeedii adi ka seenay kiin mahiimni geega ku bilaawd una dhalnay laakiin adika difaacaya eediyada ma hasanta khayradaan wala kooba korama ilaahay maykeen ku tuugana Soomaali aad nabadka waali galanta ta ka nagati ilaahay nakii garab gale onoona kii garab galya ilaahay keen ku tuugan ilaahay yaa sharfa madaxweynaha waana sharfay nabiyullaahi maxamed baa ilaahay wuxuu ku yiri فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نبي محمد صلى الله عليه وسلم نحريس ربي حقي كأهاتي ومن بعد أوجر عدي بني آدم كاس يددك ولا تشوغي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حداد أهان لهيد mid shaafiyaho qallalan alxamdulilah ilaahay mahadiisa waaye maanta maalinka si farxad badanaa imaanaysa insha allah raallah haweenaha raxmad iyo damiir dadnimo oo ilaahay qalbigiisa uu geliyey ayuu noogu jilcay noogu diirnacay 3 sano ka bacdiina
uu noo suurto geliyey inaan hor fadhiisanno madaxtooyada weligeena kolleyba anugu aana soo gelinna uuna soo geliyo asagoo weliba ilmaheenna intaas aan raadinayno xog inooga wada towfiiqdan allah ha ku waafajiyo saddexdii aan kugu duceeyana ilaahay ha kugu aqbalo xilka aad haysidna ilaahay ha kugu ceebtiro annagoo dhanna raciyo fiican allah inaga dhigo madaxda allah inoo hagaajiyo shacabka iyo raciyadana dad madaxdooda ka dambeeya oo wixii xaqa ku raaca allah inaga dhigo